Soomaaliya juqraafi ahaan waa dal dhaca gobolka Geeska Afrika. Waa dal Ilaahay ku manaystay dhul barwaaqo ah, xeebo dhaadheer, xoolo tiro badan, khayraad dabiici ah, dad xooggan oo maskax iyo muruqba leh. Laakiin ayaan darro waa dal aan weli helin xasillooni siyaasadeed oo waarta. Tan iyo maalintii uu xorriyadda qaatay, waa dal ay iskaga dambeeyeen hogaamiyayaal ku suntan musuqmaasuq sanad walbana kaalinta koowaad kaga sugan musuqmaasuqa caalamkan iyo kuwo kale oo basiyaase lagu tilmaami karo. Waa dal uu shisheeyuhu u farafareeyey sida laf cad oo uu toobin ku hayo, shisheeye uu kala qaybiyey, burburiyey oo baabi'iyey. 26 Juun 1960 ayay ahayd markii xorriyadda qaateen gobolladii shan waqooyi, 5 maamul kadibna waxaa xornimada qaatay gobolladii koonfureed. Farxad iyo rayreen ayaa saaqday laabaha dadka Soomaaliyeed. Waxaa si aan ka fiirsi lahayn u midoobay labadii gobol ee waqooyi iyo koonfur. Waxaa la filayay horumar, dowladnimo iyo cadaalad waarta, isla markaana u noqota dhaymo dhaawacyadii iyo urkutaalladii gumaysiga. Waxaa hiyiga lagu hayay midnimo dhamac, laakiinse waxa ay noqotay hungow iyo haadaano baas. Madaxweynihii ugu horreeyay ee labadaas gobol ayaa loo doortay Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cad. Waxa uu ahaa nin aftahan ah, siyaasi xaadhan oo turxaan ka madhan. Dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee uu la kulmay waxaa ka mid ahaa dagaalkii 1964 ay ku soo qaadeen Itoobiyaanku xadbeenaadka magaalada Wajaale. Doonistoodu waxay ahayd inay qaataan Berbera iyo qaybo ka mid ah dalkii Soomaaliyeed, laakiin ciidamadii geesiyaasha ahaa ee xooggii dalka Soomaaliyeed ayaa si la yaab leh ganabka ugu dhuftay damacaas. Aadan Cadde ayaa xilka ka tegay 1967 kadib doorasho uu kaga guuleystay Cabdirashiid Cali Sharmaake oo noqday madaxweynihii labaad ee Soomaaliya. Inkasta oo uu lahaa karti siyaasadeed, nasiib xumo 2 sano kadib Oktoobar 1969 ayaa lagu dilay magaalada Laascaanood, dilka oo ilaa hadda aanay jirin cid baadhay iyo sababtiisii toona. 21 Oktoobar isla sanadkaas waxaa afgembi military kula wareegay Maxamed Siyaad Barre. Inkasta oo uu bilowgii u muuqday karti badane wada nidaam iyo xasillooni, haddana gadaal dambe ayaa uu ka noqday keli taliye macangaga. Sanadkii 1977 Soomaaliya waxay dagaal la gashay Itoobiya. Inkastoo ciidamadu gaadheen guulo laxaad leh, haddana gadaal dambe ayuu xaal iska gadiyey. Dagaalkaas kadib, dalku wuxuu cagaha saaray dhabaha burburka iyo baaba'ah. Dagaallo sokeeye iyo qabyaalad xadhkaha goosatay ayuu dalkii dhex muquurtay. Ugu dambeyn 1991 ayuu dalka ka cararay basaaskii gablay malaayiinka Soomaaliyeed ee Maxamed Siyaad Barre. Xilligan dalku waxa uu cagaha saaray wadiiq baas iyo balanbal xooggan. Beel walba waxa ay qaadatay hubka, tuulo kastana waxay cagaha u gashay reer qolo, garanna way u riixantay. Dhinaca waqooyiga, gobolladii British Somaliland waxay isku sheegeen inay yihiin dowlad madax bannaan, magacoodana waxay ku ladheen Jamhuuriyadda Somaliland. Waxay dhaliyeen nabad waarta, waxa ay dhabaha saareen helin doorasho iyo dimuqraadiyad qabiil ku dhisan. Halka gobolladii koonfureed sanooyin badan oo dowlad la'aan iyo dagaal ah kadib laga dhisay dowlad aan cago badan ku taagnayn, tabar darrana hayda u dambeysay taagan. Ilaa maanta Soomaaliyadii koonfureed oo mid aan dabkeedii dagaaladii qabiilkuna iyaga oo shaadhadh argagixiso wata bay socdaan. Nidaam federaal oo xaalka sumeynayana gosha ayaa loo geliyey. Faragelin shisheeye iyo musuqmaasuqna way dhaxashay. Sanooyinkana waxaa taagan kala qaybsanaanta awoodeed iyo midnimada xumada Soomaaliya. Burburkii dalka kadib, ma jirto cid dhammaystiran u baadhay dhiiggii taatay iyo dhulqoyskii dhacay. Somaliland inkastoo ay sanooyin badan ku naaloonaysay nabad iyo horumar, aysan weli helin aqoonsi. Haddana dagaalkii Laascaanood 2023 ayaa si cad dhayda uga cadeeyay wejiga saxda ah ee Somaliland. Gabagabadii muuqaalkana waxaynu ku soo afbeeraynaa gudgudad baas iyo daruuro duufaano sida ee allahayow sidii roon. Intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa muuqaalkeenan. Haddii aad nagu cusubtahay like saar muuqaalka, siina sheer gala saaxiibadaas.